habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda kulmiye caawa ay idiin heesa waxaa ugu waaweyn ajnabi dhowaan lagu qabtay garoonka muqdisho oo loo gudbiyey xabsiga dhexe ee xamar dad maanta siyaabo kala duwan loogu dilay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir ciidamada ammaanka oo toogtay mid ka mid ah kooxa dil ka geystay muqdisho iyo mid kale oo ay gacanta ku soo dhigeen shil geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir wasiiro ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya hoos taga oo xilka laga qaaday iyo xiisad weli ka taagan magaalada Jigjiga ciidamo ka socda dowladda Gaana oo saldhigyo ka samaysanaya Muqdisho iyo magaalada Baydhabo iyo muran ka taagan magacaabis uu sameeyay madaxweyne Uhuru Kenyatta hormuud telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah hormuud telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado hormuud saaxiibkaana u qaad mar kale habeen wanaagsan waa arbaco taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 23 bisha koobaad ee January sanadka 2019 caawa waxaa noo waramaya Cabdilwali Abubakar Cabdullaahi aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi Xuseen Canshuur habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan intii dhawaan la socotay wararkeenaba ajnabigii dhawaan lagu qabtay garoonka Muqdisho ayaa loo gudbiyay xabsiga dhexe ee Xamar soo saareen caawa Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa faafaynta warkaasi noo hay gelinkii dambe ee maanta ayaa maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay soo saartay amar ah in xabsiga dhexe ee Xamar lagu sii hayo Antonio oo ahaa 48 sano jir u dhashay boqortooyada Ingiriiska waxaa maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in ninkan uu yahay eedeysane iyadoo ay u cuskanayso qodobada 332 iyo 531 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ciidamada ammaanka ayaa sabtidii la soo dhaafay oo 19 bishan ku beegan waxay garoonka diyuuradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ay ku qabteen ninkan isaga oo sida la sheegay boorsooyinkiisa mid kamid laga helay sunta dadka ka ilmisiisa waxaana durbadiiba la sheegay in loo gudbiyay qaybta dambi baarista ee CID-da wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo isniintii warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ninkan boorsooyinkiisa laga helay sunta ama qiiqa dadka ka ilmisiisa isla markaana ciidamada booliisku uu gacanta ugu jiro waxa uu tilmaamay in baaristiisu ay socoto uusan dalka ka bixin marka laga soo tago amarka maxkamadda ay amartay in ninkan lagu sii hayo xabsiga dhexe lama bixin faahfaahin ku aadan ilaa iyo hadda waxaa lagu ogaaday baaristii muddooyinkii ugu dambeeyay ama 3 maalin ee la soo dhaafay ciidamada booliisku ay ku hayeen xabsiga Xamar ayaa waxaa xusid mudan in dadka loo gudbiyo dadka iyagu sugaya maxkamad ama dadka maxkamaddu ay amarto ama xukun ay ku rido waxaana la dhowrayaa ciqaabta ama xukunka maxkamadda ay ku ridi doonto waxaana iminka uu ku jira xabsiga dhexe ee Xamar dad maanta siyaabo kala duwan loogu dilay degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo dhanka kale ciidamada ammaanka ee gacanta ku dhigeen dilka geystay mid kalena ay gacanta ku dhigeen Yunis Duraan Cali ayaa faafaynta warkan inoo haya muddo ku dhow 10 saac gudahood magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dilal qarax oo inta badan lala eegtay dad shacab ah dilkii koobaad waxaa koox ku hubeysan biskoolada dil ugu geysteen degmada Hodan nin ka mid ahaa dadka ku nool degmada gaar ahaan xaafad lagu magacaabo suuqa caanaha oo u dhaxaysa isgoysyada Albarko iyo KBB waxaa la sheegay in ruuxa la dilay lagu magacaabi jiray Cabdimadoobe waxaana la tilmaamay inuu ka mid ahaa dadka deegaanka durbadiiba waxaa la sheegay inay goobta iskaga baxsadeen kooxdii hubeysneed ee ruuxaasi dilka u geysatay dhanka kale salaadii duhur kadib ayaa koox kaloo hubeysan waxa ay suuqa bakaaraha ku togteen askari ka tirsan ciidamada dawladda ciidamo kaloo goobta ka agdhowaa ayaa la sheegay in durbadiiba ay dileen mid ka mid ah raggii dilka u geystay askariga halka mid kalena ay gacanta ku dhigeen halka kuma ekaan dilalka maanta dhacay koox kaloo hubeysan ayaa isla suuqa bakaaraha dil ugu geystay mid ka mid ah ganacsatada suuqa bakaaraha ka oo lagu magacaabo Saada Maxamed Daahir waxaana bilowday baqdin gudaha suuqa bakaaraha taa oo ku aadan dilalka ka dhacay saacado gudahood dhanka kale galinkii dambe ee maanta waxaa meel ku dhow isgoyska Taleex ka dhacay qarax gaari lagu soo xiray goobtana ku baakinaa inta la xaqiijiyay qaraxa waxaa ku dhaawacantay 4 ruux oo shacab ah sida uu xaqiijinay mid kamid ah saraakiisha Aamin Ambulance oo daabulay dhaawacyada waxa goobta ku burburay gaarigii lagu soo xiray qaraxa
bismillahi raxmaani raxiim cabdiqaadir cabdulaahi cabdi magacii ka tirsan hay'adda aamin ambalaas waxaan xaqiijin karnaa inta aragnay ambalaasyada ay qaadeen 4 qofood oo dhaawac ah shacab dadka meesha taagan oo shacabka kamid ah in dad baabuur kale iskeen ma sheegi karno laakiin inta qofood oo aamin ambalaas xaqiijisay 4 qofood oo dhaawac ah gaari nooc loo yaqaan baabuurta raaxada way hayl kasta loo yaqaan dadka ma kala sheegi karno inay baabuurta saarnaayeen inay laakiin wax baabuurta saarnaa ma arkin 4 qofood oo dhaawac ah wallaahi wax darno isaga ma jiraan ma sha Allah ilaahay loo gudbiyo alxamdulillah 4 qofood waxaa la dhowrayaa ciidamada la sheegay in lagu wareejin doono ammaanka magaalada muqdisho si looga baaqsado dilalka iyo qaraxyada shacabka ku dhintaan. marka laga soo tago qaraxyada iyo dilalka maanta muqdisho ka dhacay waxaa xaafadda daarusalaam ee degmada yaaqshiid ka dhacay shil sababay dhimasho 2 gabdhood halka wiil kalena uu dhaawac ka soo gaaray. goobjooga la hadlay idaacadda kulmiye ee muqdisho ayaa inoo sheegay in shilkan uu ka dhashay isku dhaca gaari nooca raaxada ah iyo mootobajaaj xawaare sare ku socday waxayna ku wada socdeen mootada iyo gaariga wadada dheer ee gasha xaafadda cusub ee daarusalaam. wasiiro ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida hoos tagta Itoobiya ayaa xilka laga qaaday iyadoo weli xiisad ay ka taagan tahay magaalada Jigjiga. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamuud Cumar ayaa xilka ka qaaday mas'uuliyiin dhowr ah oo la sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay ka soo horjeesteen kulankii golaha wasiirada ee maanta dhacay. waxaa xilka lagu qaaday koox la garab Axmed Shida kuwaasi oo kala ah Cabdi Xakiin Cigaal madaxii xarunta xisbiga dhexe, wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Xukun Cali oo ahaa madaxii macadka farsamada, Cabdi Bile oo ahaa madaxii shirkadaha yaryar ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hoostaga Mustafa Maxamuud Cumar ayaa wasiirka warfaafinta u magacaabay Cabdullaahi Maxamed Mawlid. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hoostaga ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay waxaa soo food saaray caqabado badan oo ay ka mid yihiin arrinta isku dhaca qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada oo uu meel adag ka istaagay isagoo hore u sheegay in isbedel ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida balse xagga Oromada uusan ka dhicin wax isbedel ah. awoodda xisbiga dhexe ayaa u muuqatay inay sababtay loolan adag oo u dhaxeeya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar iyo gudoomiyaha xisbiga Axmed Shida waxa uu ku xiran yahay dowladda federaalka Itoobiya. waxa uu hore u soo noqday wasiirka warfaafinta haatana waxa uu yahay wasiirka maaliyadda ee dalka Itoobiya. waxaa muuqata inuu saameyn badan ku leeyahay siyaasadda deegaanka. ciidamo ka socda dowladda Ghana ayaa saldhigyo ka sameysanaya magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Shamis Xasan Haruun ayaa warkaasi noo faafaynaysa. dowladda Ghana ayaa waxay ka mid noqonaysaa dowladaha qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee lagu doonayo nabadeynta Soomaaliya iyadoona haatan ay magaalada Muqdisho ku soo wajahan yihiin ciidamo cusub kuwaas oo ka qayb noqon doona ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha Soomaaliya. ciidamadan tiradoodu ay gaadhayso ilaa 160 askari ayaa waxay ka soo degi doonaan magaalada Muqdisho ahna halka ay saldhigi doonaan isla markaasina ay howlgalkooda ka bilaaban doonaan iyagoona sidoo kale qayb ka noqon doona howlgalka ay sida caadiga ah ciidamada AMISOM ay ka sameeyaan qaar ka mid ah gobolada dalka. ka hor intaanay ciidamadani loo soo dirin Soomaaliya ayaa waxaa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo soo gaaray saraakiil sarsare iyo taliyayaal ka socda dalka Ghana kuwaas oo kulamo la yeeshay madaxda AMISOM ee Soomaaliya. waxaana ay ka wada hadleen arrimaha keenitaanka ciidamadan iyagoo 5 maalmood ku sugnaa gudaha Soomaaliya. dowladda Ghana ayaa waxay ka mid noqonaysaa dowladaha ku soo biiray dowladaha kale ee Soomaaliya u jooga sugidda amniga iyadoona ciidamadani ay noqonayaan kuwii ugu horeeyay ee soo gaara Soomaaliya. weli waxaad degeysanaysaan warka habeenee raadiyo kulmiye qodobada dibadda ayaa inoo soo socda balse markaan duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr Jabuuti u doono. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dekreeto uu soo saaray ku magacaabay Fred Matiang'i oo ah wasiirka arrimaha gudaha inuu noqdo madaxa guddiga awoodda badan ee mashaariicda horumarinta qaran iyadoona arrintan durbay ay abuurtay falkaanooyin siyaasadeed oo qabsada warbaahinta Kenya. saaga boog hore ee jaraa'idka waxaa lagu soo toosay iyadoo uu ku qoran yihiin in xilka Matiang'i loo magacaabay uu meesha ka saarayo mas'uuliyaddii madaxweyne ku-xigeenka William Ruto oo isaga laftigiisa hadalhayntiisa ee aad u badneyd dhawaanahan.
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka kenya oo lagu magacaabo daniel ayaa wargeyska standa u sheegay waa arrin la yaab leh sababtoo ah dhammaan wasiiradu waxa ay hoostegi doonaan wasiir ayaga la mid ah ayuu yidhi warkii habeenaad kala socoteen raadioga kulmiye waa naga intaa dhegeystayaal cidduu sheegana waxay dib uga heli kartaa bogga internetkanu ku leenahay radio kulmiye.net habeen wanaagsan